dhowaad 200 oo maroodi ayaa ku geeriyootay waddanka Zimbabwe sida ay sheegtay hay'adda maamusha beeraha iyo duurjoogta waddankaasi. wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa afayeen u hadlay hay'addaasi oo lagu magacaabo Tinashe Varo ayaa sheegay in maroodiyaal fara badan oo gaaraya 200 ay ku geeriyoodeen gudaha waddankaasi. waxa uu sheegay mas'uulkani in maroodiyaashu ay u geeriyoodeen haraad iyo gaajo. waxa uu sidoo kale sheegay in haddii xaaladdu ay sidan iska bedelin oo aanay roobab iman ay dhibaatadu sii badan doonto. xayawaanada ku nool waddanka Zimbabwe ayaa waxa ay la dhibaatoon yihiin haraad iyo gaajo. maroodiga ayaa ka mid ah xayawaanka ugu badan ee ku nool waddanka Zimbabwe. hay'addu waxay sheegtay in 33 qofood ay geeriyoodeen kadib markii ay soo weerareen xayawaano uu ka mid yahay maroodi kuwaasoo haraadan. sidoo kale hay'addu waxay sheegtay in 600 oo maroodi iyo xayawaano kaleeto loo soo qaaday beerta caanka ah ee la yiraahdo Rift Valley ee ku taala koonfur bari waddankaasi. waddanka Zimbabwe ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin maroodiyaal lagu qiyaasay 85,000 oo maroodi, waana waddanka labaad ee ugu maroodiyaasha badan dunida, waxaana kaalinta koowaad ku jirta waddanka Botswana oo ay ku nool yihiin 130,000 oo maroodi sida ay sheegtay Associated Press.